iyo labo maalinta toban iyo kow maalinta aheedaan dhalay 3 cisho kalena waa kusoo jiray maalintii 14 aheedaan kasoo baxay soo dhawaada walaalaha qaaliga dhammaantiin saa u wadarantiin mar kale iyo video cusub iyo walaashin Shama family soo dhawaada sitiin caafimaadkiina ay wacantiin aan filaaya meel walba adduunka ka joogtiin cimri dheer caafimaad cibaado suuban ayaan rajeynayaa aamin ya rabbi anagana aan ka reebin haday tahay markii kuugu horeysay subscribe like share commentigana waa dhankaaga abay shamso iyo mar kale iyo video cusub iyo part 2 insha Allah sheekadayna shalay ala socoteen aan soo deeyay part 2 ayay noqotay insha Allah horeyna waan igu sheegay fiidiyaha marka maadaama fiidiyaha uu dheeraaday waan soo kala jaray waxaan ka soo dhigay laba qayb marka qaybtii labaad waatana meeshaan aan ku soo gabagabeynahay haduu Ilaahay idmo wari dhamaantiis waxaan oo joogtay 3 maalin oo 3 dabo kala la isiiyay maalintii koowaad hada dibni ugu celiyo kaniiniya la isiiyay maalintii labaad kaniiniya la isiiyay maalintii saddexaad waxa la isiiyay gel maalintii afraad waxa la isiiyay bahal oo la dhaho qeed ay dhahayaan yani qeed dun amal waa bahal dun amal u samaysan oo hayda iska gelinaay ma fahanteen ilmo inay fiirsanaa laga yaabo niman inay fiirsanaa laga yaabo marka aan dul maraya meesha waa ogtiin Soomaa wali gel meesha laskaga soo waa ogtiin bahashaasna waa gel amal laakiin ma ahan idan meesha la iska siiya anyway wax caafimaad aan ka hadloona wax dhacayaan ka hadloona naaga badan aan lagu sameeynaya waxaas wax la xishoodo ma ahan laakiin caafimaad ahaan iyo qisada iyo inta ogaateen aad jeceshiin darteed ayaa rabaa inaan igu sharxo wiilgeyga ani ma ka hadlin qisa ani qabsatay ama sheeko aniga igu saabsan laakiin maadaama aad tihiin gabdho oo qalbi wanaagsan oo Ilaahay darteeda ayaa marka insha Allah nila share gareynaya anyway marka 4 maalin aan marwaa Soomaa marka qeedkaas iyo kaniinkaas labada mar iyo jeelkaas markii la igala daalay hadana waxay dhaheen mar kale ayaa waxa ku siineynaa jeelka okay aan dhahay adiga isbuuc iyo 3 beri 10 cisho markii la imeermeerinayo oo maalintina la isiinayo habeenkiina la iga daminayo maalintina la isiinayo habeenkii la iga go'aan aan qaatay marka maalinta 10aad go'aan aan qaatay waxaan dhahay aniga maanta laga bilaabo wax kanina la ima siinayo wax daba ana la ima siinayo wax jeel la ima siinayo wax qeed la dhahay la ima siinayo maxaa yeelay maalintii oo dhan waa foolanaya habeenkiina xanuun baabi ayaa igu diriisinaan dhahay maantadan la joogo maantay 10 tahay aan dhahay isbitaalka aan joogo isla habeenkan soo galay maantan soo galay bas aan nasiina aan iga helaa aan nastaan dhahay maanta sariirtaada waatana qolkaaga waa kana seexa ayaa igu dhahdeen laakiin maalintii dambe waxaan ay kaniinka igu bilowdeen jeelka igu bilowdeen qeedkan ay sheegaysan igu bilowdeen hadana mar kale jeelkan daawooyin isla heena igu wadiinaan dhahay ma fahanteen ilaa hadana 3 sentimitir la ku furanaan ileedii maalin kastana saasa waxaan dabadiiba dhul ma dhigi kariyaan dhahay saasa u wareegta xanuunka ihay ilaaha og maskaxdaasaan ka soconaya hadana wax ii soo furmay malahan waa daalay please waxaan dhahay in la iqalaa raba nolosheeda ma ku haminin qaliin nolosheeda kuma haminin maxaa la dhahay asaga in aan qaliin marbiliis kuma haminin laakiin gabdho waxaan ii sheegaa marka macaato ma aragtay danto waxa ku qasbayso in wax risqi aad dalbatid aniga jeceliga ma ahayn inaan qaliin dalbado maxaa yeelay caruura isugeyso 5 caruura ii joogtay alxamdulillah markaas uurkaas aan laban gaaraan xor waaye wayna joogi karaan wayna bixi karaan free waa iyaga ismaamula laakiin intiiba oo 12 iyo 11 waa lagu ogolay in hal saac ama 2 saac guriga uga tagtid laakiin caruurtaada kala mamnuuc waa xaajigu wuxuu sameyn jiray caruurta markuu iskuulka geeyo kindergartenka geeyo labada roon ayaga baxay beebigiisana maxamedna inuu gaariga soo saaro ayuu ii keeni jiray eesaas cunto subaxdii oo ilmaha joogaan aan ku dhaay oo mid hirgabsan yahay labada kale hirgabsanta uu joogi jiray anaa dhihi jiray iska daa hoos muqaay ku furan meesha wax ku gadanay inkastoo cuntadooda dhan ay anfici jireen oo wax sokor lahayn iyo wax cabitaan sokor waxaas aan iska jeclaa anyway maamulaha koo halay waxaan dhahay maamulihii oo dhakhtarka ugu weynaa la ii waxaan dhahay aniga meeshan 10 cishaan ku jira koo dhaha caruuran ka soo tagay
xaajigayga uu shaqeeyaa darteedu fasax soo qaatay aniga waxaan rabaa in la iqalaanda waa naag fiyow oo dhali karto oo qalin dalbanaysa ka sheekeeya danta igu qasabtay waa macaadi ma fahanteen ilaan ma tobankaas cishaan ku dhahay maalin aan foolanayna ma lahan wax ii furmana ma lahan habeenkii haddii la gaarana mid cusub oo shaqada soo gashaa kuu imaanaysa dhab xanuun baabi'iyaa lagugu dira tig waaba seexinaysa adi maalintii oo dhanna sas u raf waay habeenkiina seexo maxaa ii soo arkaan dhahay anigii miidhooysiin oo cunugaa kuugu weynaado waa lagaa keenaha 10 cisho maahana waxa hadda i foolinaysiin ama aniga hadda cunugii aan dhalay may bitta waxaan dhahay bliis walaalayaalow iqala anaa raali ah ma lagu qalaa i dhahe maba lagu qalaa sababta lagu qalaa maxay tahay hore ilmo soo dhashay waa dhali kartaa cunuga zaa'id kuugu weynaan hadaa lagaa keenaya shaqada yaa lagu jiraa isdaj maxaa isdajiya 10 cisho waalowsinaan dhahay mid cusbeeda mid daawo cusub la igu baroobeeno daawada aan dhahay markaas aku soo biiro lix iyo ahayd alxamdulillah waa dhaqanahay ilaahay intay haysanana hasiyo intay haysatan ilaahay u barkay anigana ilaahay ii deesto marka yaraanimadaada ku soo shaqaysatid xogaa faanaan igu daray marka yaraanimada ku soo shaqaysid aday caruurta isla keenaysay ma fahanteen anyway gabdhow marka waxaan dhahay ani waxaan isku soo jaray maamulaha oo hala ii keenaan dhahay ilaa idinka shaqaalaaba tihiin ilaa naag dhowcileeba ii imaanaysa waxay leedahay kaniinkan qaado bahashan lagugu shubaay inta seexo haye waa lagu wiisateena ay kaal safar leh lagugu wado marna kaniin lagu siinay marna jeekan kor aad soo deg kor aad 10 cisho war waxaan ku dhahay saas iskugu dawareegnay xataa khayr Allah siimay rajo inaan soo waca waxaan dhahay war maay rajoy Muniiroy xaaladeyda ma qiyaasnay walaalayaal waxaan dhahay gabdhaha quruxda badan oo kugu xiran faataxada ii soo maraanaan dhahay ii soo duceeyaan qalinka duu khayr iigu jiro ilaahay inuu waafajiyo haday shar iigu jirtan ilaahay inuu iga reebo fawsheeda ii soo dedejiyo waayo go'aanka aad ma lihid gurigaaga ma ku laaban kartid war hal isbuuc jaanis isiya ma dhihi kartid waa lagu talinayaa isbitaala ku jirta cid ila joogto malahan xaajigii caruurtiyo la hakaaraya maruu kindergarten geey maruu iskuul geey maruu guriga wax ka sameeyo maruu dhar dhaqo asagaba stress qaaday mararka qaar aan ku dhahay cunto fiican ma jirto isbitaalka waa ogtihiin intiina badan walaa mararka qaar bariis iyo waxa la ii soo koray cabitaan hal ii soo shiiday hal ii keen markaan dhaho ilmihii hadan cid loogu soo taga malahan gabdho ma fahantan ilaan kurbaha adaa isku hooyo adaa isku aabe adaa eedo isku adaa abti isku adaa wax kasta isku waa ogtiin ilmihiina lagama soo tagi karo kaligood waxaan ku dhahay ayagayna in la soo aruuray ma la keeni karo ani gabdhayga laba la ii raro 12 jir iyo 12 jir way labadeeda gabdhood waa lagu ogol yahay wadanka Jarmalka 2 saacadood bas inaad gurigaaga tagtid ande eedanaan dhahay oo mid la igu diraa jirkeyga wax inay u dhimaysay doctor ma diidayaan dhahay marka saas darteed waxaan dhahay aniga bataatanba in la iqalaan rabaa anaa raali ah hala iqalo dhakhtarku iga diiday wuxuu dhahay aad bileyso dhakhtar carabi oo aad bileyso waa dhali kartaa isdaji maanta isniinta cunugan waa inaad dhasho ugu dhahay hadii ilaa 10 saac dhali weyso waa lagu qalaa rasalti ala rabaa ugu dhahay dhakhtarka markaan ku adkaysto hala iqalo maxaan igu dhahay anaa raali ka maxaa jiro meesha halaanka badan ma joogi kar hadii kale hala ifasaxaan ani gurigeyga u laabana hal isbuuc jaanis isiya maya hal isbuuc sokor waa waxa aadaga kugu soo booday cunugaas wax u dhimay sas darteedaaba laga keenaya marka ma lagu fasaxi karo hadii la ifasaxeenin hala iqalahe ma lagu qalaa daawadan la ku dhalay daawis ay ku dhalaa anu waxa oo jirkeyga waxaan dhahay marka dhakhtarku wuxuu dhahay dadna markii saas kaniga loo siiyo fooshooda way soo degdegtaa dadna ma soo degdegto marka adiga dadka jirka adag ku jirtaa daawisi oo sahal lagu sii kuma dhaleyside maanta faleebaa lagugu durayaa biyahan waa laga dilaacinayaa beebiga markaas kadib ayadaaba fool imaanayso daqiiqada ku dhalay u dhahay hadaa dhali weysidna 10 saac maanta meeshii lagu gaaro balan waayo dhahay balaas adoo saxiixin anaa ku qalaa saas ma aha haye aniga waa ku faraxsanahay dhalow qalinka waa ku faraxsanahay subaxay ahayd marka wuxuu dhahay orod ii sheeg adiga dharkaaga baxasho waxaa jirto mar walbaba markii oo dhakhtarka aad tagis caloosh lagaaga xiro oo cunuga la baaro oo marooyin inta badan qofka isbitaalka ku jira yaqaano marooyinka soo qaatay soo galowda qolka umulsidiyaaba la igu xireyay marka 4 saac markay ahaydba faleebada la igu taagay maadaama 3 hore igu furnay maadaama 3
sentimeterna hore igu furneed ii sheeg adiga haddana faleebadii la igu bilaabay marka faleebadii markay jirkeyga soo gashay xanuunkii ii soo bilaabmay haddana isla xanuunkii oo caadiga kii isbuucyadanba aan soo maraayay albaabka la ii soo garaacay المهم faleebadii la igu diray moogtiin faleebadii la igu diray xanuunka igu bilaabmay kadib waxaan ku dhahay cabaar 4 saac subaxnimo la igu bilaabay markay 6 saac ahaydna biyo iga dilaaciyeen biyo la iga dilaacay xataa waa la igu qiyaan waxa la igu dhahay waa lagu fiirinayaa saas ma aha haye markaas cirbada intay ku wadataa kuuma ogi dhash biyo soo diray baaldi biyo iga soo daato markaas aan ku dhahay maskaxda inta aan socod ka bilaaban ku dhahay meel ii rooma cirka ii marona dhulka ii marona hadaa orodid iyo hadaa fariisatid hadaa sixid isku keymid cirka iyo dhulka mugdi ila naqday jaq naqska igu xirma gaaraan ku dhahay xanuunka i qabtay intaan caruuran soo dhal weliga ima qabanin gabdhow ma fahanteen weligaaga biyaha yaa laga dilaacin ha ogolaan ani waa diidi jiray markastaba xataa oo maxaa lahaa asiga isbuucyadaas la ifoolinayo markasta waxay dhigi jireen biyaha laga dilaaciyo markaas gabdhaha saxaab waxay iiga sheekeen biyaha yaa laga dilaacin biyaha hadaa laga dilaaciyo maskaxda ku ordee manoolid inta koorsas iyo gabar kasta saas loo qiyaan aniga waa diid ma ogtay biyaha ma la iga dilaac aniga waxa arki jirnay Soomaali markii la joogo gabadha hadiiba marba yaxda ay soo dilaacdo cunugan uu soo daba haysta laakiin meel inta adoo fooshaada koo joogana cunugii laga dilaacina biyihiisa cunugii marka biyihiiba haday ku soo dhamaadaan waxa halis ugu jirtaa in degdeg ah ku dhashid ama in cunugaas waqtigiisa haduu oo ilaa 5 saacadood 6 saacadood fuulistid haduu imaan waa in lagu qalo anigii marka biyihiiba dal iga dilaacay cirbadan isbuucyadaas aan ku jiran hor wiligay la igu mudrin markii igu horeysay waa cirbada la igu diray mar waxaan ay faleebadan la haday igu dir laay mar horaan dhali lahaayaan faleebadii markii la igu diray biyo la iga dilaaciyaa horta meer igu dambeysay anta almuhim 4 saac aan bilaabay sheekada foosha markay 9 saac 10 ahaydna cunug banaanku yaalaan ku dhahay degdeg aan ku dhalay iyo wixii isbuuciye aan soo foolanay aan soo rafaaday isma lahayn alxamdulillah maalintaas 4 saac ilaa 4 saacadood ka bilow 5 saacadood 6 saacadood 7 saacadood 8 saacadood 9 5 saacadood aan waxa u dhahay nool igeeri asaa hada xaajiga wacday markii kaligeeyga naqska ama kugu xirma maanta meeshaan ku dhimata aan dhahay aan yaabay aan xaajiga wacdo isoo gaaraan dhahay asada iigu imaaday alxamdulillah adi markii 9 saac 10 ahayd dhiman 9 saac 10 dhiman oo maalin isniin ah quraan badan waa la isoo akhriyay haday tahay aabahay haday tahay familka haday tahay hooyo idaaba iska xanuunsan oo waxaan ku dhahay ilaaha ii caafiyo oo si hatta hadleenin hooyada laakiin familada hatta heer masaajid la ii tago oo afar faatixa la iiga soo maraa la gaaray wallahi billahi sanadkan weligay saan uma foolanin weligay waxaan ku dhahay saan uma murgoonin waxaan dhahay tawba dhalma damba xata wallahi billahi sanadkan anigaan waan dhalay ma fahanteen anyway adiga qaliinkan oo ilaaha iga badbaadi alxamdulillah saanaaba khayrka ku jirtay adkaar badanna waa akhrisanay markaan isbitaalka ku jiray waxaa jirto adkaar xataa 40 mar aan ka akhriyay oo sheekh aan ka maqlay oo dhahay qofkii 40 jeer ka akhristo muraadkiisu uu degdega uuna helaa wallahi subaxdaas isniintan ku dhahay ilaaha i waafajiyay 40 jeer aan ka akhriyay akhristo ma fahanteen adkaar badan ilaaha i waafajiyay waxaan ku dhahay alxamdulillah waa iska duceystay 2 rakacaan tukaday masaakiin badana waxa u niyeystay 20 qof oo kale haduu ilaahay maanta luqunteeda ii bixiyo oo qaliinkan aan ka badbaado intaan caawin doono 20 qof oo masaakiin had waxaan rabaa insha Allah bishan haday dhamaatay inaan u diro lacagahooda walaashay Muqdisho degan ay u qeybiso masaakiinta waxaan ku dhaw wali wadooyinka taagan oo tuugsanayaan in la ii siiyo alxamdulillah idinka ducadeen ilaahay ii aqbalay ma rajul khayr Allah siiyo asxaabteeda 3 bari dhana ii soo duceynayaan ayagana jazaakallahu khayr marka gabdho qisadeeda intaas ku soo koobaya saasa ahayd sheekada adiga 12 maalinta 12 maalinta ii aheedaan dhalay
saddex cisho kalena waa kusoo jiray maalintii 14 ee ii aheedaan kasoo baxay ma fahanteen 14 ano iyada ii ahaa kasoo baxay 11 cishana gurigeygaan joogaa 25 ii tahay maanta waa 25 ayay ii tahay maanta wiilkayga intuu dhalan yahay alxamdulilah wiilkaygana maahira u bixiyay magacaana haduu mirax yahay hadii kale ii soo sheega maxamed iyo maahir maadaama 4 gabdhood hore aan u haystay haddana ilaahay labadan wiil gadaal iga siiyay maxamed iyo maahir aan u bixiyay ilaaha barakeeyo hanoo deysto dhamaanteena gabdhaha foosha waxaan ku dhahay qarka soo saaran oo kommentiyaasha ii soo qoray waxaan leeyahay fooshiina markay guriga ku dhameysta kadib le ambalaas wacda haddii lacala cunuga kugu weynaaday waxaas lagu dhahayna dhib ma lahan hadaa dhaloy tahay waa dhali karta laakiin hadiiba marba sokor kugu soo booday dhakhtarka warkiisa raac sokorta ma sahlano laakiin haddii sokor qabin oo tabiici na u dhali jirtay oo caafimaadkaana taam yahay waxba isbitaal ku ordin ee guriga ku dhameyso aniga caruurtii hore gurigeyga la ku dhameysan jiray kan waa ii kow ilaahna ha iga saaro 3 bilood kadib waxa la igu dhahay markaan dhalay kadib oo maantan soo baxay check abaan soo maray waxay igu dhahayn sokortu way ka baxday laakiin ilaa 3 bilood is ilaali 3 bilood kadibna dhakhtarka sokorta aad check up good soo maray igu dhahayn ma fahanteen marka ilaahna ha naga wada saaro alxamdulillah hadda maadaama ay dhaheen sokorta tii uurka wayna ka baxday saasay tahay wallahi sokorta hadda ma cuni shaah sokor kuma darsadi sida shurbado kale markaan ku soo shubto sokor kuma darsadi baasta ma cuni bariis hadaan kariyo wax yaraan ka soo shubtaa wixii cuntadii dhanba waa ka babaqaa ma fahanteen qof walba waxa igu xiran qofkii hore marka dhakhtarka insha Allah inaan ku laabtaan rabaa 3 bilood kadib cunugana waxa la igu dhahay naaska u badi si oo isha jirkaaga nadiif u noqdo marka ilaahana wada caafiyo ilaahay inta xanuunsan ilaaha caafiyo inta caafimaad qabtan ilaaha u ziyaado sheekadana halaanan ku soo koobeeya insha Allah wixii feedback ama wixii comment insha Allah qaybta commentiga ay la soo wadaagaysan haduu ilaahay idno waxaan iga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bye bye